waxaan leenahay madaxweynaha waxaan leenahay loo soo gurmado biyo waaye shilinkii meel xun buu marayaa sicir bar baa nagu dhacay waanu qasaarnay ninkii $1 haystay kun buu qasaaray kun baa maanta xaasil oo ah qasaaraan nagu dhacay cid noo ogama jirto annaga ku qasaarnay war nala soo gurmado halkani waa suuqa sariflayaasha ee magaalada Hargeysa waa goobta ay ku kala socotaa isku beddelka lacaguhu waana goobta ugu samxadda badan ee ku yaala suuqyada magaalada Hargeysa telefishanku saaka waxa uu soo kuurgalay waxa ka ogaanshiyaha halka ay ku dambeysay lacagta shilinka Soomaaliland ay ugu yareed 500 boqolka shilin iyo 50 shilin walow sariflayaashu ay sheegeen in haba yaraatay lacagtaasi suuqa soo galin tan iyo waqtiga ay xukuumaddu suuqa soo galisay lacagta ay ugu badan tahay 5,000 uguna yaran tahay 1,000 shilin ee Soomaaliland shilingaayo waxaana sariflayaashu ay sheegeen in kor u kaca qiimaha sarifka lacagaha oo saaka maraya in halkii dollar lagu sarifo 9,900 shilinka Soomaaliland ay ugu wacan tahay in lacagtii Soomaaliland ay lahayd ay dalka ku noqoto mid martiya taasoo ay sheegeen in bulshadu door bidayso haysashada iyo inay isticmaasho lacagta dollarka oo iyadu dalka marti ku ah waxayna lacagta dollarku bedeshay in lacagtii shilinka Soomaaliland ay dawladdu maamuleysay inay dalka ku noqoto mid martiya isla markaasna badankeedu ay suuqa ka baxdaba حسن عبد الحسن wuxuu kamid yahay dhalinyarada ku ganacsada magaalada Hargeysa bal waxaan wax ka weydiin doonaa halka ay ku dambeysay lacagta shilinka Soomaaliland ay ugu yaree 500 boqolka shilin iyo 50 shilin iyo waliba xaaladda suuqa ganacsiga ee Soomaaliland sarifka kor u kacay ka taagan waxa weeye walaal ha waa aragtaan oo lacagteeni de 1,000 iyo 5,000 oo shilin oo isku xidhan u baarkaysaan boqolkii lama hayo 50kii lama hayo 500 lama hayo adduunyada dadkuna waxay ku xisaabtamaan waa shilin waxa weeye shilinkeena hadii aynaan urursan lacagteena aynaan kaban imka qofka 500 kala jeexan xataa u dhiibtaa wuxuu ku oranayaa aniga mid yar si adduunyada qof kasta wuxuu ku xisaabtamaya wixiisa yar inuu soo nooleeyo inaga bal adduunyadeena xagee qabatay maxaynu ka shaqaynaynaa mid kale dadkii xataa ganacsanayay adduunka qofku waa la soo gacan qabtaa halkan waxaad moodaa qofka xataa ganacsanaya saacad walba in shilinka shilin lagu sii darayo sixir barar baa jira dadku waa dawaqsayin dan yar baa jirta ummadan waxba haysan baa jirta inagu suma waxaad moodaa inaan wadanka tuuraali ka tagay waxaan oran lahaa kulay dadweynaha bal systemka adduunka sidii aynu la jaan qaadi lahayn hal la yeelo qofku wuxuu ku oranayaa dollar baan doonayaa inagu lacagteenu ma aha dollar hadii ay sidaa noqoto inaynu wadamada Mareykanka isaga biirno dollarka qaadanaya inay ka mid noqoto miyaanay kula eegayn dawladdu ogtay waxa weeye qofna lama qasbi karo qof yiri shilinkaygan ku xisaabtamaya de qofna ma qasbi karo laakiin kii shicibka ahaa ilaa iyo keeni gaariga soo raacay caana ku yana ku oranay waa inta soo dollar shaygi inana lacagteenu dollar ma hada walaan laanteeni inaga qiimo ridnay waxaan u sheegayaa dadweynuhu inay iskaga noqdaan lacagtoodii hore ay yaqaaneen shilinkeedii Soomaaliland tahay بعدما بين Soomaaliland darnahay xukuumadda Soomaaliland sanadihii u dambeysay waxay tahli kar weeday inay salka u dhigto sixir bararka waaye meel ku nasto ee ka jira guud ahaanba suuqyada ganacsiga ee Soomaaliland gudoomiyaha sariflayaasha oo saaka wax ka weydiiyay halka ay ku dambeysay lacagta shilinka iyo qiimaha sarifku halka uu marayo waxa uu igu jawaabay wallahi shilinkaas waxa uu saameyn ku yeeshay oo khadka uga baxay waa horta waa sixir bararka oo de boqolkii dollar markuu milyan marayo de boqolkii shilin waxba loogama baahanayo laakiin maalintii uu boqolka dollar 500 marayay sirsir baa looga baahnaayo waxay ku shaqeynaysaa sirsir baa lacagtu 50 shilin boqolka shilin markaas sababta looga maaran waayay de milyan isku xidhan markuu qofku helayo tii kala baahideedu meesha way ka baxaysaa markaas sixir bararka ayaa sababa in lacagta shilinka kale ay aad u socon weydo baalku aad buu noogu kacsay marxaladii ugu adkayna uu maraya waligiina halkaan buu gaaray marka wallahi sheegitaankeeda baan ugu adagba inay bulshadu u qaadan weydo oo una wareeriyay waanu ku dawaqnay waanu ku kacay waanu ku kacnay khasaare badan baa naga soo gaaray wallahi waa milyankii waxba kama dhina 5,000 shilin baa ka dhiban milyankii maanta haddaba bulshada Soomaaliland ayaa baadi goobaysa halka ay ku dambeysay lacagta ay hore u isticmaali jirtay ee 500 boqolka shilin iyo 50 shilin oo hore u ahaan jirtay lacagta ugu qiimaha badan ee laga isticmaalo Soomaaliland intii aanay xukuumadda Soomaaliland talada dalka qaban ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Silaanyo oo iyadu soo daabacday lacagta 5,000 iyo 1,000 shilin oo hadda ah lacagta inta badan laga isticmaalo suuqyada ganacsiga ee Soomaaliland Sakariya Sudeesi iyo waliba Maasim telefishanka Ariel magaalada Hargeysa